قروحو هرمرا شقلا هرمودكي أقر لي مركي تعا هيغانوغو هادان هوشيتنا هقو هيغانوغو هادان بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يركسو هذا برنامج أنا دوكا ديارني صدحي لباتن شغالة أو شغالة سومالي لان كميدا ومدة لبا سنadooda waxa ka soo baranay dalka Itoobiya islamarkaana munaasabad ballaaran lagu sameeyay hotel Mansour ee magaalada Hargeysa madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliya uu helayaan xubno kamid ah golaha wasiirada Soomaaliland gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland agaasimaha macadka tababarka shaqaalaha dawladda iyo agaasimayaasha guud ee wasaaradaha caafimaadka iyo qorsheynta iyo mas'uuliyiin kale ay ka qayb galay munaasabadaasi daawadayaal barnaamijkana sidan ayuu u dhacay waxaynu qadar daqiiqada isu taagi doonaa heesta calanka jamhuuriyadda Soomaaliland kadibna munaasabadeenna inuu si toos ah ugu geli doono gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha mudane Farxaan Aadan Haybe ardayda ka soo qalin jabisay jaamacadda shaqaalaha Ethiopian Civil Service University ee sanad dugsiyeedka 2018-2019 waa soo dhaweyn iyo maamuusid way ku saabsan tahay qada sharafta maanta uu sameeyay gudoomiyaha hay'adda shaqaaluhu waana mid caado ah markasta ay soo qalin jabiyaan ardayda lagu dhiirigelinayo lagu soo dhaweynayo laguna maamuusayo laguna dardaarmayo shaqadii ay u qaban lahayn qarankooda sidii waajibaadkooda u gudan lahaayeen oo loo soo carbinayay muddo 2 sanadood iyo ka badan waxa faahfaahin dheeraad ah inaga siin doonaa systemka ay ku soo bilaabantay ardayda ilaa hadda ka soo qalin jabisay iyo nidaamka ay u wada shaqeeyaan jaamacadda shaqaalaha Itoobiya maxadka shaqaalaha dawladda iyo shaqaalaha dawladda Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo nidaamka ay u wada shaqeeyaan ardayda u direen iyo sisteemadii ilaa waqtigu soo bilaabmay xiriirkoodu agaasimaha guud ee maxadka shaqaalaha dawladda guuleedka mudane madaxweyne sanadkii 2008 waxaa halkan ka tagay wafdi uu hogaaminayay gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha xilliga oo ay ku jiraan agaasimihi guud ee maxadka xilliga waxaa gudoomiye ka hay'adda shaqaalaha Cabdiraxmaan Cadami waxaa kaloo la socdo gudoomiyaha agaasimaha maxadkana ahaa Maxamed Xilla Boqorre waxaa la socday agaasim ku-xigeenka maxadka xilliga ahaa Cabdullaahi Jaamac waxa weeyaan أنا وحنا مركا حبين الله سبحانه وتعالى وحن شوقي قيبت توبرد محدك وحن ويدي سندي جامعة شغالة إثيوبيا ومركا كلها شهيد إن النوت وبران وبرنامج دار نوسيا شغالة دولة هل كاسو كسب بالعمل سنة كلا بدكون استيدا وحاجة سنة كا كوابة موقف وبرنامج الدكري قالوا بالعمل باجكي كواد
kii labaad bay bilaabeen inay masterna siiyaan qof baa galay abubakar saasay kusoo socotay wixii ka dambeeyey sanad kasta waxayna siinayaan 20 master ah oo shaqaalahan maanta horteena fadhiya ay ugu dambeeyeen tirada guud ilaa imika ka qalan jabisay waa 150 koob iyo 30 baa digrii qaatay 119 master bay qaateen tirooyinkaasi waxa weeyaan fiilashan ay dawladdu u baahan tahay inta badan soo bartaan sida nidaamkan maamulka iyo maareynta maaliyadda waxay soo bartaan nidaamka maamulka xafiisyada waxay soo bartaan maareynta iyo maamulidda magaalooyinka nashqadeynta magaalooyinka waxay soo bartaan deegaanka sharciga waxa la iyo waxa dawladdu ay u baahan tahay bay soo kala bartaan dhammaanna waxay joogaan hay'adaha dawladda iyo wasaaradaha dawladda boqolkiiba 75 ardayda halkan fadhida grade-koodu 3.75 ka sarreeya jaamacaduna aad bay uga mahadsanaysaa waxay jaamacaddu in badan na weydiisaa halkaan ka soo xullo ardaydan maadaama oo ay mid kasta baarku ku jiro oo ka sheegan yahay kana magacaabo ardayda waxa kaloo xusid mudan inay dhammaantood u yihiin safiiro Soomaaliland waxaan halkan laba kelmadood siin doonaa laba arday oo kamid ah guddiga ardayda hadda soo qalin jabisay iminka waxaan mikrofoonka ku wareejin doonaa oo yeeri doonaa fuaad oo ahaa xoghayntii ardayda hadda soo qalin jabisay oo kelmado kooban halkan naga waran doona maadaama waqtigu nagu yaryahay mudanayaal iyo madaxweyne 750 cisho ka hor oo ku siman 2 sano waxa maxadka shaqaalaha dawladda ayaa waxaan ugu fadhiisanay imtixaan annagoo ka kooban hay'adaha dawladda ee kala duwan waxaan ka soo baxay 20 arday oo 20 kan arday halkan fadhiya waxaanu dalka ka baxnay November 2017 waxaanu galnay kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda alxamdulillah maantana waanu ka soo qalin jabinay waxaanu diyaar u nahay horumarinta qaranka iyaga curdinka ah ee baahida xoog ah u qaba aqoonta mudanayaal iyo madaxweyne xigmad baa tiraahdaa marka aad rabto in dal la burburiyo looma baahna in hub culus loo isticmaalo looma baahna in dagaallo culus iyo military lagu soo qaado kaliya simple waxa loo fasaxaa qishka ya loo fasaxaa dadka xabran macallin dhakhtarkooda dili doona patientkooda injineerkooda ayaa dhismihiisu dimi doona mudanayaal iyo madaxweyne waxaan halkan dardaaran ugu soo gudbinayaa mujaahidiinta qalinka qoladan hor fadhida waxaan leeyahay waxa tusaale noogu filan maanta imaanshiya madaxweyne ku-xigeenka oo shaqooyinkiisii waqtigiisii inooga soo baxay taasoo cadeyn u ah sida madax yar iyo weynba laynoogu helin haddaba haloo halgamo qaranka yaan shaharka yar iyo layma magacaabin meel kale loo hanqatay waxa yaa laynaga maqlay aad iyo aad buu mahadsan yahay Cumar oo ka tirsan shaqaalaha bangiga dhexe Fuaad oo ka tirsan shaqaalaha bangiga dhexe iminkana waxaan laba kelmadood siin doonaa gudoomiyihii ardayda maanta aynu xafladda halka ugu hayno Cumar oo isaguna ka tirsan wasaaradda shaqada iyo shaqagelinta arrimaha bulshada iyo family dhammaantiin farxad weyn bay noo tahay maanta in laynagu maamuuso laynaguna soo dhaweeyo waddankeena hooyo annagoo markeenii horeba ahayn shaqaale dawladeed una baxnay hadaf ahaa in aynu buuxinno kaalin bannaanaatay mudanayaal waxaan aaminsanahay in ardada ay soo barteen ilaa 16 kulliyadood oo kala duwan 16 ka kulliyadood sidii hore loo sheegay waa wixii aynu u baahnayn oo qaranka uuna ku taabageli lahaa waxaan iminkana u yeedhayaa arday hore oo ka soo qalin jabiyay jaamacadda shaqaalaha Itoobiya masabada ugu sarreeyana Soomaaliland ka soo qabtay maantana halkan inala fadhiya waa wasiir Yuusuf wasiirkii hore ee wasaaradda maaliyadda oo ka mid ahaa qodobka koowaad waxa weeye mudane madaxweyne ku-xigeen ardayda soo qaadatay shahaadada labaad ee waxbarashada sare ee ka soo baxday jaamacadda shaqaalaha ee dalka Itoobiya
waxa ay kaga duwan yihiin ardayda kale ee jaamacadaha ka qalin jabisay kow waxay barteen waxay tahay dowladnimo qaabka dowlad curdin ah loo dhiso loogana shaqeeyo loona kobciyo nidaamkeeda dowladnimada loo habeeyo ayay barteen maxadkaasi wuxuu ka qayb qaatay oo la aasaasay 1995kii horumarka ama jaamacadaasi horumarka ay ku naaloonayso dalweynaha federaalka dowladda Itoobiya waxa muhiim ah oo maxad ee jaamacadani ay kaga duwan tahay jaamacadaha kale in qaabka la isugu xiro ganacsiga gaarka loo leeyahay iyo dowladnimada ay isla jaan qaadaan in lagu soo barto waxaan in yar mikrofoonka ku soo dhaweyn doonaa oo yareey degdegsan wasiirkeena ganacsiga maxamed xasan sacad saajin oo ay fasaxi doonaan horta marka horeysa waxaan ilaahay soo dhawaada wadankiini ku soo dhawaada hadalkana badan maaye waxaad soo baratee waxa la idinka joogaa inaad dalkiina wax u qabatiin waxaa kaloo muujinaysiin waayo haddii aad qorshayso in aad halkaa joogto ood halkaa gaadhay ood gaari wada disappointment way leedahay inaad sabir muujisiin wadankiina waad u dhalinyartihiin adduunyada mar lama wada gaadho waxa weeyaan halka u saraysa xitaa inaad gaadhiin mustaqbal baad u leedahay dhalinyarna waad u tihiin marka inaad anigu waxaan kula dardaari lahaa wadankiinana waxaad soo barateen wax ugu qabta dad badan wax soo bartay baa jira oo suuqa fadhiya oo sabir yeelan waayey waayo wadankeena waad ogtihiin oo dee wadanka waad ku soo noqdeen waxna waad ku barateen dhaqaalihiisu waxaad ogeedeen mar intan aada uga liitay oo waxa la wax moogtahay shaqaale xitaa una jirin iminka waa soo korayna isbeddel weyn baa socda isbeddelkan in la jaan qaada dhisana wadanka si aad markaad dhisiin dabadeed eed qayb wax ka qaadatiin dee midhahaad u haysiin laakiinse midho meelkiisii yaalla oo daadsani ma jireen waxaa la idinka rabaa wadanka inaad wax ka qabatiin waxaan idinla qaban karaynoo ku dhammaan idinla qabanaynaa inan baa noogu jira waanu dadaalaynaa isagana haddii aan la yidhaahdo de kuwo badanoo kalena way joogeen marka waan dadaalaynaa aan leenahay kuwa kalena laynadaa agaasimihii guud ee wasaaradda qorsheynta qaranka oo kana mid ah ardaydii ka soo qalin jeedsay jaamacadda Itoobiya ee agaasimaha guud ee maxadka halka sheegay Mubaarak Cabdullaahi ugu horeyn ilaahay baa mahad iska leh inaynu maanta halkan isugu nimaadno inagoo soo dhaweynayna qayb ka mid ah muwaadiniinteena wax soo baratay oo aqoon soo korarsatay diyaarna waa inay dalkoodii muxuu ahaa u shaqeeyaan marka ugu horeyn waxaan jecelahay inaan hambaliyeeyo kooxda soo qalin jabisay ee aynu maanta u xafladeynayno ama aynu soo dhaweynayno sidaa uu Mustafa sheegay anigu waxaan ka mid ahaa ardaydii ka soo qalin jabiyay jaamacadda civil service-ka Itoobiya waxaan marnay hadda muddo 5 sano ka soo wareegay waxay 2014kii runtii wax weyn weeye oo qiimo weyn u leh oo sharaf weyn ah madaxweyne ku xigeen in dad wuxuu ku horumaraa oo hiraalkiisa ku gaadha sida uu dhiso aqoonta shaqaalihiisa iyo xirfadlayaashiisa tan waxay ka mid tahay dadaal badan oo hore u soo socday oo hay'adda shaqaalaha dawladda iyo maxalka tababarka shaqaalaha dawladda ay sameeyeen si hiraalka loo gaadho halkaynu ka soo bilownay qarankoodu garanaynaa waxa ka mid ahay iyadoo ardayda ay iskuulada daasad ku fadhiistaan oo wax lagu baro iskuuladuna ruuf aanay lahayn oo ay duusan yihiin marka loo eego halkaynu higsanayno weli wax badan baa inoo hadhay laakiin marka loo eego halka laga soo qaaday iyo muddada la soo waday wax badan baa la qaftay oo maanta way inay soo baxaan aqoonyahan master's degree iyo bachelor degree sita PhD insha Allah ta'ala doonaya inay maarta ku tartamaan waa wax weyn waana hidaal fiican waana tilmaam fiican oo horumar leh
waxaan xusayaa wasaaradaha arrinta ugu mucda ahayd ee xafladdan u qabanay waxay ahayd inaynu dhiiri gelinno aqoon-yahanka inoo soo baxay oo intooda badan ah shaqaale dowladeed madaxweyne ku-xigeen wasaaradaha ay ka kooban yihiin baan doonaya halkan inaan ka sheego iyo tirada ay kala yihiin iyo bayjanda macnaa jinsi ahaan lab iyo dhadig siday kala yihiin 23 weeye soo qalanjabiyey oo aqoon-yahan waxay ka kooban yihiin sectoriska ay soo qaateen ama fieldiska waxay soo qaateen waxay kala yihiin public financial management sida maaliyadda qaranka loo maamulo public procurement and asset sida qaniimadda ama asadka iyo soo iibsiga iyo habka loo soo gadanayo iyo habka loo maareynayo maamulkeeda tax and customs administration oo ah sidii cashuuraha iyo customs-ka loo maamuli lahaa oo aan filayo wasiir ku-xigeenka maaliyadda halkan uu fadhiyo public management and social security oo iyaduna xagga amniga iyo public management-ka ah economic development dhaqaalaha sidii loo horumarin lahaa comparative law iyo international law development policy oo ka mid ah environment and climate change oo imika adduunyada culays ku haya oo ah habkii loo ilaalin lahaa deegaanka iyo loona maamuli lahaa cimilada isbeddelkeeda loona jaan qaadi lahayd oo muhiim ugu ah maanta adduunka iyo innagaba gaar ahaan waxaa kaloo ka mid ah urban infrastructure management oo iyaduna maadaama dadkeenu magaalooyinka u soo guurayaan muhiim inoo ah in magaalooyinkeena si habsami ah oo nidaamsan aynuu maamulano qaybahay soo bartay waa kuwa waxa ay ka tirsan yihiin aqoon-yahanka inoo soo qalin jabiyey ee maxadka shaqaalaha Itoobiya jaamacadda shaqaalaha Itoobiya inooga soo baxay waxay ka mid yihiin wasaaradda 23 aqoon-yahan weeye ama graduates wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska wasaaradda cadaaladda wasaaradda tamarta iyo macdanta wasaaradda beeraha wasaaradda horumarinta shaqagelinta arrimaha bulshada iyo qoyska wasaaradda deegaanka banka dhexe gudoomiyihiisa halkay nala fadhiyo maxadka shaqaalaha dowladda maxkamadaha xeeraalinta guud tayada hay'adda shaqaalaha dowladda iyo guddida qandaraasyada qaranka waxaan is leeyahay waa mucdi hay-adihii ugu mudnaa qaranka dhiibada horumarinta waa hay-adihii ugu mudnaabay u soo qalan jabiyeen waxa muhiim ah oo aan wasaaradaha iyo hay-adaha ay soo qalan jabiyeen ka codsanayna oo ku xoojinayna oo aanu kula dardaarmaynaa isagoo halkana fadhiya madaxweyne ku-xigeenka qaranka jamhuuriyadda somaliland mudane cabdullaahi ismaaciil saylici in ay dhalinyarada aqoon-yahanka inoo soo baxay ay ka dhigaan qaar mansabiyo muuqda oo ay burhaantooda aqoonyo ku soo bandhigayaan ay u dhiibaan si ay u noqoto inay wax ku taraan fishanka ay hay-addaasi ay ka tirsan higsanayso kaasoo kamaya fishanka guud ee qaranka iyo national development goalska qaranku leeyahay taa waxaan ku dardaarmaya hay-adaha anaguna waa ku dabagelaynaa in looga faa'iideeyo qaranka dhalinyarada waxaan kula dardaarmaya somaliland idinka waxba idin tartay qaniimad imika qarankani leeyahay ka mid tihiin waxbaa laydin soo celiyey dadka kale waa ka duwan tihiin waa laydinku soo tabcay qiimaha haddii laysu geeyo aad halkaa ku soo gaadheen waxaa laga yaabaa inuu 50,000 $100,000 ama $100,000 qaranka jamhuuriyadda somaliland ku joogo marka waxay ogaataan adduunyada kale imika qorshaha doonaan waxa weeye ardayda dambe soo qalin jabinaysa in lala galo heshiis inaanay meel kale u shaqo tagi karin ay sacrifice sameeyaan oo qaranka wixii la soo geliyey ay uga faa'iideeyaan oo aanay ku baadin doonin macaashir oo ay maalintaa shilimaan ku helaan laakiin ay tahay ubadkeena iyo jiilba jiilku ka dambeeyo wax taraya inay qaranka ku taraan oo cidda hogaaminaysa ay ku kabaan anugu waxaan ugu talagalay anoo kala tashaday hoggaanka maxadka shaqaalaha dowladda inaanu certificate of appreciation ku maamusno oo aanu leenahay soo dhawaada oo aanu taana waxaan jeclay madaxweyne ku-xigeenka doosiin doona insha allah aad baa u mahadsantiin dafcadaha maqan imika ku jira soo baxaya dhawaan sanadka dambe noo soo qalan jabinaya iyo dafcadaha imika gelaya iyagana waxaan ugu ducaynaya ilaahay kusoo asturo usoo dhameeya hawshaas biidni illah waxaan qarankeena tusaale wanaagsan u ah in da'yartaa soo baxaysa ay tilmaan wanaagsan u tahay
in beri dhow aqoontii ay noqoto waxa lagu hirdamay positionska lagu qaybiyo aanay noqonin ayaa taqaan ay noqoto maxaa taqaanaa aad baa mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad buu mahadsan yahay guddoomiyaha hay'adda shaqaalaha mudane farxaan aadan haybe iminkana waxaan ku soo dhaweynayaa agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka soo dhawaagaas run ahaantii maanta oo kale waa maalin weyn oo sharaf inoo ah inaynu dhowr iyo 20 aqoon-yahan oo markii horena ahaa shaqaalaha dawladda ku soo dhaweyno inay soo dhammaysteen digrigoodii labaad iyo kii koowaad iyagoo aan filayo inay wax weyn ku tari doonaan horumarkii socday ee hay'adaha ay marka horena qayb ka ahaayeen dhexdooda waxaan ku sii dhownahay guntiga gabagabadii waxaan iminkana ku soo dhaweynayaa guddoomiyaha bangiga dhexe ee jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Cali Ibrahim Al-Baghdadi dhalinyarada ka soo jabisay jaamacadda Ethiopia aynu caawa bixinay mujaahidiinta qaranka aad baan u mahadnaqayaa hay'adda shaqaaluhu waxay noo tababartay ilaa 50 shaqaalaha dawladda shaqaalaha ayaa ka mid ah oo tababaro xirfadeed ay siiyeen xagga accounting iyo managementka waxaa kaloo noo tababareen ilaa 100 shaqaalaha oo tababaro kooban ay siiyeen markaa hay'addaasi kaani weyn bay kaga jirtaa jamhuuriyadda Soomaaliland hay'adaha ugu mudan bay ka mid tahay gabagabadii baynu ku soo dhownahay waxaan iminkana ku soo dhaweynayaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda mudane cabdiqaadir kolley maanta kullu maqaam lahaa maqaal bay carabtu sahdaayo maanta hadal kale ma yaalo aan hambalyo ahayn intii laydin oran karayna waa laydin yidhi 2 kalmood baan kusoo koobayaa mid waa wasaaradayada midna waa ardayda haddaan ku horeeyo horta waxaan u mahadnaqaynaa macadka hay'adda shaqaalaha ee dawladda idin diray iyo macadkii shaqaalaha Itoobiya ee aqoontayda soo siiyay waxaan mar labaad u mahadnaqayaa madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland oo markii koowaad ee uu ka soo qayb galo soo dhaweynta ardayda because of isagoo idin dhiiri gelinaya ayaa lagu lin halkan taasi waxay intusaysaa qiimaha ku leedihiin dalka taasina waa mid ilaahay loogu mahadnaqo waxaan filayaa guddoomiyaha hay'adda shaqaaluhu wuxuu yidhi malaha haddii mar wasaaradda maaliyadda la maqlo lacag unbaa la hadal hayaa horta guddoomiye sanadkan waanu kuu kordhinaynaa miisaaniyadda waxaan ballan qaadayaa maadaama aad dalkii ku soo kordhiseen labeenta sanadkii 8aadna aad maraysaan sanadkan waanu idin kordhinaynaa insha Allah haddii la asaas sanadkan wada qaysan waxa kaloo wasaaradda maaliyadda haddaan ku soo noqdo annaga malaha waxba naguma harinay waa kii wasiirkaygii hore maaliyaddu sheegay inuu 15 xubnood gaarsiiyey 4 agaasimo waaxeedna ilaa imika ay joogaan waliba xagga kalena aan ku badiye xagga jandarkana wuu ku wanaagsanaa annaguna aan ku wanaagsanno hablaha way u badan yihiin taa horta malaha wax dabo la naga doonayaa ma jirto waxaanu guddoomiye u nahay wasaaradaha leerinkii madaxweyne taasi waa taa inta hadhayna waxaan ka ballan qaadayaa inaanu promotion kala u sameeyno soo dhaweyno oo aan waliba qaybta imika soo baxday kastamada iyo cashuuraha bariga oo baahi badan u qabnana ka faa'iideysano waan mahadsantihiin wixii kale imika hadee la yidhahdaba waa hawl wasaaradaha kale iyo meelaha kale ee ardaydaasi khusaysana waxaan leeyahay war ha ka baqan inay ku dhiirada waanu idinla garab taaganahay haddaa is leedihiin agaasimo waxay cusub la soo kordhaya miisaaniyad looma hayana annaga laabta idin garaacayna oo haynay intaasaan kusoo gabagabeynayaa mar labaadba congratulation baan idin leeyahay sidaan hore idinku sheegay conduction badan baa weli naga dhexeeya weli waxbarashadii aad baan u xiisaynayaa waan idin soo dhaweynayaa mar labaad iyo mar saddexaadba waxaa runtii maanta farxad dhammaanteed oo ah 23 aqoon-yahan oo ka soo qalinjabiyey maxadkii shaqaalaha Itoobiya oo waxbarasho bilaasheed ugu deeqay runtii marka hore waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa ama hambalyeynaya hay'adda shaqaalaha iyo macadkeeda runtii oo hawl weyn runtii ka wada qaranka muddada uu jiray macadka Soomaaliland shaqaaluhuna runtii tallaabo ama horumar weyn ayuu ku tallaabsaday runtii
waqti dhexe markii ay hay'adda UNDP oo gacanta ku soo haynaysay ay yiraahdeen hadda waan idin soo tababarno waan socod barnay kharashkeeda la wareega waxaan la wareegay muddadii hore xukuumadda ka tirsanaa Axmed Siilaayo anaa 2014 baan inta badan kharashkeedii xukuumadda la wareegtay runtii نحن هيدو runtii si wanaagsan bay iskula jaan qaadeen runtii institutionka Soomaaliya si wanaagsan dhismay ay ka mid yihiin aad loo mahadcelinayo runtii inay wixii deeqan la helo ay si siman wasaaradaha ay uga soo dhexuraan si dibadna markaa loogu iyadoo qool lagu sareynayo ay u soo bartaan wax kale aad ugu mahadnaqaynaa runtii maxadka shaqaalaha Itoobiya oo runtii saa la sheegay دفعات بدل لو صاب حنا ما قوية لو صاب حنا إن أنت ما تشقين وزارة كشقيسة يين كهرباء ويكسر بهونتي حل كل واحد من هاي الناس كيان إنه واحد ساعة إنه كل يوصل بحسابه إذا كان ورتيات بني سولوين أنت ما تكسر بحرية عصب تدعتك قوية كجار ورتيا فرح قبله نية أوصل نبرة يجي مدة لباس سنوات سيسول بيسنا هين ديجري لما ترتي هذه أبغى نعملينا مثلاً سنة سعودين ظروفها تركتشرا أي عرس الوهية ما أنت وين كور النايو وكان يجدي دليرا هو يسوع هذا دوا أبغى أكلم صوت بلاوي جامعة دي يفتي على بلاوي استيا سياش كيلا ما أنت وكوبي لا تسنادات مكان لما هو كدقول ما قالوا هو كدقيت إذا ما هي ميليشيات يوم كدقيت دليرا يدو كلون جاء الخرطة في دليرا اللي يرجع شرطي نبيدو برتبا مركز وحي تلقي وليس القاري يكون في الله لها يقف كاسي حقوق دي سكول الله نكي صوح صوح برتلي حتى وصلنا يعني الله وصلنا كل طريق ماسترا واستيت توصلنا دي وحو حقولي هاي وهروح لفيس يبارتي كوف العضاء يقويس كيس يمارت عندي سوكري سبب لكن هذا واحد يتعي عرضه واحد وقعت كوه نوع سكيرو سكومعنا إلا بيريك لي أقرأت واحد آديات ومهيبة مركاية تقول الصبرة أنا أروح جعلها ما أفريتها بالحوية والكارسينا إن نمضى وحبرتي وسارد كجرا إلا قلت حبيلية إذا جاء وحي بروموشن وسارد كايمانيا إن ما تلقى ده صار حسارة وسارة وأقول هذا ما شاء الله وركعت شرنا وهذا إذا ما تقدر أنتي إذا صوت القاعتين إذا كان حاليا القارئ حسليه ومدرسون شقيني هذا دبوا وتعليق وطي هذه أدوات يقول ما السلام عليكم ورحمة الله قروحو أرمرا شقلا هرمود كي أجر لي مركي تعا هجنوجو هذا هوشيتنا هجو هجنوجو هذا shaqaalaha ka soo qalin jabiyay jaamacadda dalka Itoobiya ayaa waxay qayb ka yihiin dadaalka xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliya ay gelinayso shaqaalaha Soomaaliland Salebaan Haybalambad warbaahinta qaranka Soomaaliland magaalada Hargeysa قروحو أرمرا